Ich gehe einkaufen heute. Ich heute gehen einkaufen. Ich gehe heute einkaufen. Ma isweydiisay weli sidee ayaa sax ah sidee ayaan u qoraa marmarka qaarkood waa lagu dawaqaa qaabka saxda ah ee loo qoro jumladda laakiin maanta kadib ku dawaqi maysid oo waxaynu baran doonaa tekamolo haddaba tekamolo wuxuu yahay waxaan idinku sharaxi doonaa muuqaalkan soo socda daawasho wanaagsan intaynaan gelin tekamolo waxaa loo soo gaabiyey aynu bal hal mar dur istaagno waxay tahay shaqadiisu tekamolo shaqadiisu waa in uu ku tusayo qaabka saxda ah ee aad jumladaada isku daba dhigi lahayd ama qaynfoolgaha saxda ah ee aad jumladaada aad u qori lahayd tekamolo wuxuu ku tusinayaa inaad jumladda qaabka loo dhiso jarmalku ay aad u fudud tahay haddii aad raacdo sharciga tekamolo haddaba tekamolo maxaa loo soo gaabiyey muxuuse yahay aynu eegno tekamolo waxaa loo soo gaabiyey temboqal oo ah goorma kaana waxaa loo soo gaabiyey kawsaal oo ah faaqum sabab moona waxaa loo soo gaabiyey modal oo ah fii sidee iyo lokaal oo iyaduna ah vuu xalkee haddaba aynu dul istaagno oo aynu eegna tusaalayaashan soo socda aynu jumladdan u soo qaadanno tusaale ish suwashuule giihan haddaba jumladdani sidee ayay sax ku noqonaysaa waxay sax ku noqonaysaa ish geehe suwa shuule ish waa subyektigeeni oo waynu wada garanaynaa halka giihanna ay tahay feebkeenni haddaba suwashuule waxay tilmaamaysaa waa goob ama waa wax iskuul meel ku yaalla waa meel waxayna ka jawaabaysaa su'aasha ah xaggee loo socdaa ama xaggee laga yimid waxay ku xidhan tahay kolba meeshii laga eego suwashuule waa goob taas waynu isla garanaya haddaba jumladdeennan aynu ku soo darno macluumaad cusub morgan waa sayt angaabe waxayna tilmaamaysaa wakhti haddaba halkee ayay sayt angaaba ama wixii wakhtiga ka hadlaya uu jumladdeenna ka gelayaa sax wuxuu jumladdeennu marka ay noqonaysaa ish giihe morgan suwa shuule halkaasi waxaa kaaga cad in wax alla wixii wakhtiga ka hadlaya uu booskaasi ka gelayo jumlad walba oo aad dhisayso luuqadda jarmalka aynu ku soo darno macluumaad kale jumladdeennan fuus inaad ku tegayso lug haddaba suufuus waxay tilmaamaysaa qaab nooceeya sideed ku tegaysaa ma lug ma gaadhi ma ayay tilmaamaysaa qaab nooceeya ayaad ku tegaysaa halkee ayay haddaba jumladdeenna ka gelaysaa ama suufuus sax haddaba jumladdeennu waxay noqonaysaa ish giihe morgan suufuus suwa shuule halkaasi ayaad ka gelinaysaa wixii ka hadlaya oo dhan jumladdaada maaha jumladdan oo keliyaata waa jumlad walba oo aad rabto inaad dhisto ama aad ku hadasho haddaba aynu ku soo darno macluumaad kale intaynaan macluumaadka afraad u gelin jumladdeennu ilaa iminka waxay ka kooban tahay 3 macluumaad oo ka jawaabaya 3dan shay van iyo vuu haddaba waxaynu ku soo daraynaa macluumaadka afraad jumladdeenna waxaynu ku soo daraynaa su'aal ka jawaabaysa macluumaadka faaqum ama sabab waxaynu ku soo daraynaa jumladdeenna vegan des Streikes haddaba wax alla wixii la xidhiidha sababta halkee ayay ka gelayaan jumladdeenna waxaan rajaynayaa inaad ilaa iminka ila socotaan isku day inaad fahamto
haddaba waa tan jawaabtu marka aynu ku darno macluumaadkeenna afraad. Ich gehe morgen wegen des Streites zu Fuß zur Schule. waxaannu dhammaystirnay iminka jumladdeenii oo ka kooban 4 macluumaad ah. marka laga soo tago subyektiga iyo ficilka, 4 macluumaad ah ayay xambaarsan tahay jumladdeenani. jumladdeennu waxay ka jawaabaysaa 4tan macluumaad. Wann goorma ayay wax dhaceen. Warum sabab ayay wax u dhaceen. Wie sidee ayay wax u dhaceen. iyo wo ama wohin ama woher ama halkee ama goobtee ayay wax ka dhaceen ayay ka jawaabaysaa jumladdeennu. qaabkan ayaa haddaba loo dhisaa jumladda Jarmalka. eeg sawirka hortaada ka muuqda. sidan ayay u eg tahay qaabka saxda ah ee loo dhiso jumladdu ama Reihenfolgaha ama siday iskugu xigxigaan jumladdu ayaa loo dhisaa qaabka jumladda ee saxda ah ama qaabka ugu saxsan ee loo dhiso jumladdu waa sidan hortiina ka muuqata. Wann waxaa loo yaqaanaa temporal waxayna ka jawaabtaa wax alla wixii wakhti ku saabsan. waxaanan u soo gaabin karnaa temporal temporal. Warum waxaa loo yaqaanaa causal waxayna ka jawaabtaa mar walba sababta. causalna waxaan u soo gaabin karnaa wie wuxuu ka hadlaa moodaalka. moodaalkuna wuxuu ka hadlaa sidee ayay wax u dhaceen ama qaabkee ayay wax u dhaceen. moodaalkana waxaan u soo gaabin karnaa mo. haddaba wo woher iyo wohin iyadana waxay tilmaantaa lokaal, halkee ama goobtee ama halkee ayay wax ka dhaceen. waxaanan u soo gaabin karnaa lo lokaal. sidaasi ayayna ku timid teka molo. hadda teka molo macnihiisa ama teka molo waxaa loo soo gaabiyey waad wada fahanteen ayaan rajaynayaa. intaa kuma eeka cashirkeennu uu sii socdaa. aynu eegna tusaalayaashan kale. okay, jumlado ayaan kuu soo dhigi doonaa halkan. waxaad soo qaadataa wax aad wax ku qorto. isku day in aad ka jawaabto jumladahan ama qaabka saxda ah ee ay isku leeyihiin in aad uga qorto ama aad u jawaabto. kadib marka aad jawaabahaaga inta aad qorayso istaajiso fiidiyowga, ka jawaab su'aalaha qor, kadibna muuqaalka sii daa si aad jawaabaha saxda ah aad u aragto. Viel Spaß! amba waxaad samayn doontaan inaad ku dhufato linkiga aan hoos idiin soo dhigi doono qaybta beschreibunka ama qaybta hoose. linkigaasi haddii aad ku dhufato wuxuu ku dhex geyn doonaa afgaabayaal badan oo aad toos uga soo jawaabi karto oon aniguna dib idinku soo sixi karo. saasna waad samayn kartaan kolba sidii idiin fudud idinka. waxaan idinkula talin lahaa inaad linkigaasi soo raacdaan oo aad ku dhufataan oo aad toos uga soo jawaabtaan. aniguna markaa waxaan arki doonaa inta qof ay ka soo jawaabtay iyo saad uga soo jawaabteen, kadibna waan idiin soo sixi doonaa. mahadsantiin. buuggeennii ku qornaa af Jarmalka iyo af Soomaaligana waxaad ka heli doontaan Amazon, ama qofkii xiiseynaya wuxuu ka dalban karaa Amazon. waxaan idiin soo dhigi doonaa linkigana qaybta hoose ee beschreibunka ama qaybta hoose sanduuqa hoose ee qoraalada ayaan idiin soo dhigi doonaa linkiga. haddii kale waxaad ku qori kartaa barashada Jarmalka wuuna kuu soo bixi doonaa sida kaaga muuqata sawirka hortaada yaalla. waa mahadsantihiin, wax badanna waad ka faa'iidi doontaan.